بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، walaalaha muslimiinta meel kastoo nagala socotaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha allahu tacaala halkan waxaan kula hadlayaa qof walbo dulman ama la dulmiyey. dulmiga oo noocyo badan yahay, waana sii kala xanuun badan yahay. qof baa la arkaa inuu ku dulmiyo xoog inuu kuu sheegto. qof baa la arkay inuu intaad ku dulmiyo haddana aamino inuusan waxba ku dulmino, adigii waa ka gardaran tahay. xaaladda adduunya maskacaankaas weeyaan. qofka marka la dulmaahi 3 arrin baa u bannaan inuu midkeed u sameeyo, inkastoo kala fadli badan yihiin, laakiin 3daas arrin mid alla midkuu doono buu samayn karaa, xaq buuna u leeyahay. muuqaalkan aad baan u soo koobaya insha allah tacaala inaad dhammaysato isku day. markii qofku dulmiyo, midda koowaad oo aad samayn karto waxa waaye inaad qofkaasi aad ka sabarto inta adduunka joogto, oo maalinka qiyaama ilaahi subxaanahu watacaala xaqaada kaga qaado. qofkaas xasanaadkiisa lagu siiyo, hadduusan lena sayiyaadkaada inta lagaa qaado asi dusha laga saaro, oo aad maalinkaas aad camal walba camal kheere haba yaraado maalin uga baahi badanta aysan jirin. maalin waxaa waaye saacadihii hadda kaa dayacmay markay ku soo maraan ee hadhowta aad murgi doonto. waa maalin qof walbaahi oo xaq aad ku leedahay aadan dhaafi doonin. waa maalinkaas weeyaan. maalinkaas waa marka qofkii ku dulmiyey lagaaga qaadaya. tan labaadoo samayn karto waxaa waaye inaad qofkii habaarto. nacma waa habaari karta, waa ku dulmiye qofkan. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, dacwatulmadluum mustajaaba. qofka la dulmiyey ducadiisa waa aqbal. xataa kan wax dulmin hadduu yahay qof muslin ah, kan la dulmiyeyna oo gaal yahay way ka soo baxaysaa. maahan inuu ilaah jecel yahay gaalada ama muslimka necb yahay, dulmiga ilaah necb yahay sidiisaba. tan saddexaadoo ah oo aad samayn kartahay uguna wanaagsan waxaa waaye an tacfu can man dalamak. qofkii ku dulmiyey inaad iska cafiso, inaad ilaah dartiis u cafiso. adduunkan hadda alla dartaa waa iska cafisay, aakhirana xasanaadkiisana kamaada qaadanin. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ajirkii ka fara badan ku siinayo. fa ajru cala allah, soo ilaahay ma dhihin faman cafaa wa aslaxa fa ajru cala allah. marka maalinkaas baa ajir badan yaalla. wax walbo ilaah dartiisa loo sameyn ajir badan bay leeyihiin. naftiina waxaan dardaarmaya cabsida ilaah ka sukow inuun iska sabarno insha allahu tacaala. la sii wadaag walaalahada muslimiinta muuqaalkan. hada bila towfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.